بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. غيرته ودان صاحبنا ودلانتين بعد السلام يا مركز دوا جوكتان صود وادا قمنا عاو waxaad ku daawan doontaan beesha sacad oo maanta loo dhigay mission weyn oo halkaasi yani loogu talagalay in saraakiishooda iyo ciidankoodaba gam lagu siiyo wayahay qaybta labaad waxaan ku soo qaadan doonaa haddii ilaahay yiraahdo caawa fiidkii waxa magaalada Beledweyne lagu dilay ganacsade caan ka ah magaaladaasi Beledweyne yaa dilay ganacsadahaasi halkan ayaad kaga bogan doontaa soo dhawaada asxaabay wayahay maanta waxaa dhacay dagaal aad u xoogan ayaa wuxuu ka dhacay koonfurta mudug meel la yiraahdo Shabeellow haddaba beesha sacad oo maanta yani daban weyn loo dhigay halkaas oo saraakiil iyo rag badan ay uga dhinteen dagaalkaasi dagaalka markiisa hore wuxuu ku bilowday beesha sacad ayaa weerar information qaldan la siiyay ayaa qaaday oo la yiri argagixisadii halkaas ayay ku jiraan ee ku duula anagana waxaan saynaynaa gurmad iyo garab intaba sacad markii ay hubkoodii soo ruqaansadeen ay soo dhaqaaqeen ayaa bartii cadowga lagu sheegay meelaan ahayn oo ka sokayso ayaa xabadi ku qabsatay oo cadowga lagu diyaariyay argagixisada meel soke ayay difaac ka gashay bartii lagu tilmaamay baraan ahayn ayaa aag loo galay sacadkii socdo oo wali isdhahayo wali jiidii iyo meeshii la kugu sheegay ma aydan gaarin baa meel dhaxa xabadi ku qabsatay halkaas ayaa intii lagu kala daatay dagaal faraha la isaga gubto halkaasi ka dhacay beeshi sacad wax u soo gurmado waa la waayay qabaa'ilkii aagga la deganay ama kala dagaalamayay hal qabiil oo u soo dhaqaaqo waa la waayay sacad meeshaas saraakiil dhowr ah ayaa looga dilay ciidan fara badanna waa uga dhinteen xaqiiqdii marka dagaalkaasi koletaba wuxuu yahay dagaal shirqool ah oo lagu shirqoolayay beesha sacad kuwii dad ugu dhawaay uma aysan soo gurman kuwii dad ugu dhawaay uma aysan soo gurman dagaalka muddo dheer ayuu socday saaka ayuu bilowday galabta gabaldhicina waa soo gaaray iyadoo halkaasi beeshii sacad markay aragtay in af libaax ay dhaxda uga jirto ayagana waxay sameeyeen in ay isdifaacaan oo ayna cadowga iska dhiciyaan runtii meeshaas horta waa lagu riiqmay dagaal aad u ba'an ayaa wuxuu dhex maray argagixisadii iyo beesha sacad kollaytaba qasaaruhu ma yara saraakiil ayaa ku jirto dhowr sargaal meesha ayay ku naf baxeen waxaan leenahay allah u naxariisto intii ku dhimatay intii ku dhaawacantan waxaan leenahay allah u boognayo cadowgana waxaan leenahay waa laga guulaysanayaa had iyo jeer ama ha la isqiyaamo ama yaan la isqiyaamin ogaada un hawiyow dagaalka daacad kama tihidin hawiyow dagaalka daacad kama tihidin ha islaynina ha isqaldina adinka ayaa shabaakad isku dhigaya shabaq isku dhigaya xaqiiqatan sacad maantay haddii loo gurman lahay Saleeman u gurman lahay oo yani kama ag dheere maanta waxa weeye qasaarahani waa yaraan lahay sacadna waxa weeye maanta guul ayay ku fadhin lahayn dhammaantoodba laakiin cadowga waa lagu eegtay sacad cadowga waa lagu eegtay ayaga kaliya isku soo gurmaday haddana waxay qorsheynayaan inay aagga dhanba ay ka baxaan ay wasil ay ku laabtaan aaway marka wixii hore marka wixii dhib la soo maray iyo wixii qadajac la soo maray xagee ku dambeeyeen hawiyow adinka ayaa jilaafa isku hayo hawiyow adinka ayaa isqaldaya hawiyow adinka ayaa cadowga iyo argagixisada adinka ayaa wado adinka ayaa wado cid kale ma wado argagixisa cid kale ma wado adinka ayaa wado adinkaan isku baabi'inayo adinkaan isku adeegsanayo waxaan leeyahay xasan sheekh maxamuudow 2 bilood waxaad fadhisaa dhuusmareebna godod ayaa ka qodan oo wadooyinkii la wada xiro difaaci wuxuu ku soo aruuray magaalada dhuusmareebeed ayuu difaaci soo galay soo maaha argagixisadii meel aad iska daaye magaaladii ayaa difaac looga jiraa meesha la yiraahdo dhuusmareeb dadkaani dad hore u socda ma aha xasan sheekhow ha ku daalin dadkan hawiyaa la yiraahdaa meel uma socdaan hore uma socdaan meel ay rabaan lama yaqaano argagixisadana ayaga ayaa wado argagixiso aabaheed iyo habartood ayaga weeye cid kale ma aha marka waxaan leeyahay ummadda yaa la ajarin warkii Ismaaciil Cumar Geelle ayaa meeshaan ka soo socdabo argagixisada ayaa dalka la wareegayso yiraahdo amisom ee baxdo warkii waa iska cad yo nimankii waa kuwana hal sano iyo bar ayaa dagaal lagula jiraa meel maanta yani natiijada oo dhulkii laga saar mar intaa yar oo galmudug ah ayaa niman yaroo 2,000 aan ka badnayn argagixisa ayaa maalin walba ciidan dabka saarayo dubanayo
dabka ayay gelinayaan waxaasna suurtagal ma aha waa yahay intaas haddii aan uga baxo qodobkaasi caawa fiidkii waxaa magaalada beledweyne lagu dilay ganacsade magaaladaasi caanka ah waxaana lagu dilay xaafadda Holwadaag ganacsadahaasi magaciisa waxaa la yiraahdaa ganacsadahaasi Xasan Xaaji Daahir oo ku magac dheeray Nigeria ninkaasi ganacsada ayuu ahay magaalada beledweyne aad looga yaqaano wuxuu ka shaqeynaya raggii kaliga waraabo la ka shaqeynaya ayuu kamid ahay maanta asagoo halkaasi caawa ka yimid fiidkii ayaa koox hubeysan waxay u galeen wadada halkaas ayay ku dileen kooxo hubeysan ilaa ay haddana lama garanayo ayagana meesha way ka baxsadeen kooxahaasi kolleytaba ma kooxaha la soo abaabulmiya ama soo argagixisadii ilaa ay hadda lama cadeyn karo laakiin waxaa loo badinayaa inay yihiin kooxihii argagixisada ahay inay yani ay ka dambeeyaan dilka ganacsadahaasi marka waxaa weeye magaaladii beledweyne amnigeedina waa kaa halkaasuu marayaa amnigeeda magaalada ma fadhiyo amni xaqiiq oo yani oo dhab ah oo isku haleyn kara ma jiro ummadii magaalada beledweyne lagu laynaya haldoorkoodii ganacsadahoodii shacabkoodii dhammaanba waa lagu laynaya magaaladaasi waxay u baahan tahay ciidan qaas ah oo ka howlgala ayay u baahan tahay magaaladaasi runtii ciidamada meesha jooga laisku mahaleyn kara boolis hadday yihiin iyo hadday nabad sugu yihiinba runtii meeshaasi waxaa ka socoto dhibaato aad u weyn bari dhaxdaasi waxaa la soo maray xilli aad u xun ayaa la soo maray asbuucii hore ilaa wixii ka sii horeeyay mobeelada ayaa la iska diiranaya habeenkii حتى ما نعديد أيال سك قادنا مجال برتن كذا بلد وينه وعصرة وحقوق عن وحوية مجال ذي أحد أي كبحدي عدل وهلا يا أمان كذي إلا أي حد ما جرته مدعوينه هي استد أصلا وحكم مقياي فرما الدجال كا يالكا يمحاس أيو ترى مجال ذي لما ما توجد أما عد أمنية أو الكسارية هاي لما يقان والويا بينهاي ضدك يا للدريا ولا دعيا وحي واحد بقلايو واحد رادينيو منا ملهن waxaan leeyahay marka reer beledweyne waxaan leeyahay isku tashta had iyo jeer waxaan iraada aniga war isku tashta walaalayaalow war abnigiina adinka xaqiijista adinka xaqiijista ciidamo madaniga sameesta nimanka dadka yani intay soo gaadaan umada laynayo walaalayaalow waa iska qaban kartaa reer beledweyne hadda adinka heshiisaan afarta xaafadood oo gacmaha isqabsataan oo adinka aad midowdaan cadowga wallahi billahi talaayna waxba idin dhibi karin cadowgu waxba idin ma dhibi karo laakiin waxa lidin kaga faa'iideysanaa waxay tahay kala daadsanaantiina kala ra'yi duwanaanshihiina intaas ayuu cadowga ka faa'iideysanaya waxaad dhihi lahayd reer beledweyne dhibaato aad u xoogan ayaa horta idin haysato dhibaatadaasna ilaahay unbaa idinka saari karo laakiin adinka ayaa sabab u noqon karo inaad iska saartaan haddaydan adinka sabab u noqonin inaad yani dhibaatada iska saartaan cid idinka saaraysa ma jirto waxaad dhihi lahayd marka gacmaha isqabsada afarta xaafadood intay isku yimaadaan shir ha qabsadaan ciidamo isku dhaf ah weliba xataa ha samaystaan qabaa aniga si amniga magaalada loo xaqiijiyay guud ahaanteedba waayo magaalada amnigeedii faraha ayuu ka sii baxayaa dhibaatadeeda ma yara dilkeeda dhaceeda waxa weeye waa xadaafay noqotay marka waxaan dhihi lahayd cidna ha isku halaynina maamulkan ha isku halayn dowladda ha isku halayn adiga lafahaada ka tasho iyo aayahaada ka tasho amnigaada adiga raadso oo amnigaada idinka qabsada walaalayaalow war reer beledweyne xaggee la adyihiin war maalin kastaa la dhibaateeyaa oo maalin kastaa la laayaa oo ilmaadeen rayaalow hal mar intaa isku timaadeen war xaggee nagala heystaa adinkoo dhahay lama arag war maxaa inoo dan adinkoo dhahay lama arag maxaa se idinka ah reer beledweyne laftigiina adinkaaba qarribanba adinka laftigiina ayaa qarriban waxaad dhihi lahay cadowga dhexdiinoo ku jira dhexdiinoo ka ugaarsanaya war walaalayaal cadowga waa la yaqaanaaye hal iska qabto oo amniga magaalada ilma adeerayaalow u tashta adinka adinkoon cidna yani u danaynin adinka isku daneeya waayahay qubnaha caawa intaas ayaan kusoo koobaya akhyaaray meel kastoo aad joogtaan wadi salaamaya waxaad leeyahay waqtiga jooga hadii wacnaado asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu